بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaynu eegaynaa farqiga u dhaxeeya local axis iyo global axis. hadaynu ku horeyno local axis, local axisku waxa weeye axiska ka muuqda column kasta ama beam kasta ama slab kasta oo gurigeena ka mid ah. tusaale ahaan gurigeenan wuxuu leeyahay hal axis buu leeyahay xagga hoose kaga yaala. hadaynu hore ugu sii socono aynu eegno local axiska, gaar ahaan local axiska frame-ka baynu tagaynaa sida display-ga ay ku taalo. markaan sida display-geena tagno waxaynu kasii tagaynaa halkan markaan kasii tagno waa kuwan frame-keena markaan tagno local axis baynu ka baadhanaynaa. local axis wata halkan noogu taala, apply baynu odhanaynaa, okay baynu kasii odhanaynaa. markaan okay odhano aynu iska xidhno waxaan wuu inoo soo baxayaa. hadaynu soo dhaweysano qabcad ka mid a qabcadaheena, qabcadaas kale waynu soo dhaweysanaynaa. tusaale ahaan inta qabcadda soo dhaweysano waa kan wuu inoo muuqdaa. halkeena beamkeena waxaa inoogu yaala local axis, halkuu column-keena inoogu yaalo, column-keena kalena inoogu yaalo, column-keena beamkeena kale inoogu yaalo. marka column kasta iyo beam kasta oo kamid ah structure-keena waxaa noo siinayaa local axis gaara. hadaba colorska halkan inooga muuqda maxay yihiin? tusaale ahaan halkan waxaa inooga muuqda color cas iyo color cagaar ah iyo color blue ah. saddexdaa color marka aynu eegno ee kala ah redka iyo greenka iyo bluega. redkeenu wuxuu inoo tilmaamayaa local axis 1, halka uu greenkeenu inoo tilmaamayo local axis 2, bluegana wuxuu inoo tilmaamayaa local axis 3. haddaynu intaa kaga gudubno bal aynu eegno frame-keena iyo shearkeena iyo momentigeena xidhiidhka ka dhexeeya iyo local axiska. waxaynu tagaynaa define section properties frame section, beamkeenaas aynu furaynaa, la soo durkaynaa, sidoo kale kana waynu soo durkanaynaa. markaynu beamkeena furno si ay si cadaan inoogu muuqato aan mugdi inooga gelin. markastoo aynu dul istaagno halkaa ay laba inoogu taalo ama 2 inoogu yaalo waxaynu arkaynaa shearkeena qiimihiisa, waayo shearkeena waxaa inoo ahaa 2 markastoo aynu dul istaagno halkan 3gana waxaynu arkaynaa momentigeena intaa inoo tahay, maadaama aynu isticmaalayno momentigeena 3. haddaynu intaa kaga gudubno local axiska, aynu isla garanay local axisku inuu yahay column kasta iyo beam kasta iyo slab kasta oo kamid ah dhismaheenu axis u gaar oo iyaga u gaaraan cid kale la wada. bal iminkana aynu eegno local axiska uu leeyahay slabku ama shalku. aynu tagaynaa sida display-geena objective aynu tagaynaa, objective markaynu tagno tan tigtaynu ka qaadaynaa frame-keena. waxaynu imanaa shell assignment-geena ama shalkeenu wuxuu taagan yahay slabkeena. halkan baynu ka baadhanaynaa local axis. markaynu local axiskeena helaynu odhanaynaa apply, okay. sidoo kale iminkana slabkeenu kaliya inoo saaran yahay, saddexdii oo kale inoo saaran, saddexdeeni color same laakiin direction scheme bay isbedelay. laakiin wax kaloo difference weyn ma jiro aan direction ka isbedelay ahayn. marka waynu aragnaa inuu keenana inoo leeyahay slab kasta oo inoo gaar ah waxaa inoo leeyahay local axis u gaar ah. marka inta aynu kaga gudubno local axiska aynu dib ugu noqono global axiska. global axis maxay tahay? global axisku waxa weeye axiska guud ee structure-keenu uu leeyahay. hadaynu dib u noqono aynu kuweenaan iska xidhno inagoo tagaynaa section view-geena, object assignment tagaynaa, kasii tagaynaa local axiskeena iska xidhno oo ka qaadaynaa, sidoo kale keena kalena oo ka qaadnay, okay baynu odhanaynaa. global axis waxa weeye axiska guud ee gurigeenu inoo leeyahay. haddii global axis lagu weydiiyo marka waxa weeye is the axis of the whole structure. local axis kuna yahay axiska individual kasta oo kamid ah gurigeenu uu leeyahay each element, hadday tahay beamka, hadday tahay column-ka, hadday tahay slabka, hadday tahay jointiska, mid walba wuxuu leeyahay kiisa u gaarka ah. halkaasaynu ku joojinaynaa global axiska iyo local axiska. waxaan filayaa inaad fahanteen. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.